in ka badan 100 dhalo qamri iyo xashiish ayaa saaka lagu bulbulshay saldhigga booliiska degmada Caabudwaaq. Qamrigan iyo xashiishkan oo dhawaan howlgalla ay sameeyeen ciidamada booliiska degmada lagu soo qabtay ayaa taliyaha saldhigga booliiska degmadu waxa uu sheegay in ay xiran yihiin dadkii lagu soo qabtay iyo gawaaridii siday. maandooriyaha isugu jira qamriga iyo xashiishka ee saaka lagu bulbulshay magaalada Caabudwaaq ayaa waxa goobjoog ka ahaa taliyaha qaybta booliiska gobolka Galgaduud, saraakiil ka tirsan militariga, maamulka degmada iyo sidoo kale laamaha amniga ee magaalada Caabudwaaq. ugu horeyn taliyaha saldhigga booliiska degmada Caabudwaaq Nuur Cilmi Maxamed ayaa ka warbixiyay howlgalkan ay ciidamada booliisku sameeyeen isla markaana qamriga ay ku soo qabqabteen. ciidanka booliiska oo habeen dhaweed iyagoo howlgal ku jira gacanta ku soo dhigay qamrigan iyo waliba xashiishada iyo dadkii waday ayadoo waliba warbixinta aan la soconay meelaha ay ka soo baxeen iyo xilliyadii soo baxeen aan u diyaar garownay saacada la qabtay aadna ka dareemi kartaa in loo diyaar garoobay hore loo sii ogaay waxa la qabtay 9 saac iyo 26 daqiiqo habeenimo la qabtay qalabkan aad arkaysiin haddii marka aan loo diyaar garoobin oo hore loo sii ogayna lama qabteen xilligaas waa magaaladiisa dhinac ka gali lahay aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay inaad mar labaad waxaan aad ugu faraxsanahay inaad maanta nagala soo qayb gashaan dhamaantiin inaad barnaamijkan nala ogaataan. taliyaha booliiska qaybta Galgaduud Maxamuud Lagohol iyo sidoo kale Ahmed Baraaf oo ka tirsan saraakiisha qaybta kooylaatiraad ee ciidamada xoogga dalka oo goobta joogay ayaa iyaguna ka hadlay qamrigan saaka howlgalka ciidamada booliiska degmada Caabudwaaq ay sameeyeen isla markaana ay ku soo qabteen waxaana ay ka mahad celiyeen howlgalkaas iyo sidoo kale siday ula dagaalamayaan in magaalada la soo gasho maandooriye. insha Allah bilkari waxaan ballan qaadi doonaa hadda waxa inoo xiran dadkii lagu soo qabtay iyo gaadiidkoodii inta way xiran yihiin ayaguna maxkamad baa la tiigsan doonaa hadii Ilaahay yiraahdo insha Allah bilkari cid habeeraatay aanu dib u dhigi doono ma jirto cid kasta waxa ciqaabta ay mudato ayaa waajibkeeda siin doona hadii Ilaahay yiraahdo insha Allah bilkariim wax loo fiirsan doonana ma ahan waxaana inta badan waxay dhibaato ku tahay amnigii waxay ku tahay xasiloonidii waxay ku tahay horumarka waxay ku tahay bulshada Soomaaliyeed waxay dhibaato ku tahay waxbarashadii waxay dhibaato ku tahay wax kasta oo development loo sameyn lahaa waxaana ku garan kartaan 6 xaafadood baa soo qabtay markaan leeyahay waa soo qabteenna ma ahan awoodda farmashinkay bixiyeen 6 xaafadoodba ninkii u qabi jiray awal lagu qarin jiray xaafadaha hadda waa ka dhamaatay 6 xaafadood iyo gudoomiyaalkooda shaqaynaya iyo maamulka degmada waxay sahleen ciidamada qalabka sida oo boolisku u horeeyo oo shaqadan iska leh inay meel walba farta ugu taagaan farmashinka markay heleenna ayaguna ay ku guuleysteen inay degdeg u soo qabtaan. ugu dambeyntiina gudoomiyaha degmada Caabudwaaq ayaa sheegay in amaanan yihiin laamaha ammaanka iyo ciidamada booliiska ee iyagu howlgalkan ku soo qabtay maandooriyaha isugu jira qamriga iyo xashiishka ee saaka lagu bulbuliyay magaalada Caabudwaaq. waxaan leeyahay ciidankaas Ilaahay ajri xasanaad ha idinka siiyo ilaa taliyihiina ilaa dablaha ugu hooseeya waxaad mudan tihiin in la idin abaalmarin aan la soo koobi karin la idin abaalmariyo aad iyo aad baan idinku mahad celinaynaa sida hufan oo diiran oo aad diyaarka ugu tihiin inaad dadkaas amnigooda noloshooda iyo horumarkooda had iyo jeer ay u taagantihiin annagoo og haddana xaquuqda sida ay ka tihiin waxaan idin leenahay Ilaahay baa idin abaalmarinaya annaga idin garab taagan dawladuna indhaheedana waxbay ku aragtaa dhigaheedana waxbay ku maqlaysaa sida aan annagu idinkaga mahad sheeganayno waanad helaysaan xaquuqdiina haddii Ilaahay yiraaho. Bashiir Yuusuf Nadaara TV-ga caalamiga ee dalka magaalada Caabudwaaq.